buugga Gaah ee uu qoray Ismaaciil Cabdulla. Kadib akhrinta buugga Gaah, waxaad moodaysaa in xilqadiba xilqad ku sii dhiibayso, iyadoo midiba mid ku xidhan tahay kana sii macaan badan tahay. Cajab waxaa leh sida qorahan farta ka xidhan uu buugga u qoray, oo uu meel isaga dhigay hal-abuur iyo farshaxanimo, iyo sida sixirka ah ee uu ku dhex geynayo duni kale oo aad u muquuranayso waayaha iyo wacyiga ka jira dunida. Waaba adigan ka dhex baxay halkaad buugga ka dhex akhriyayso, heer dadka kula joogaa yeedhmadooda aadan dhagow lahayn. Ileen waxaad dhegta u raaricinaysaa maya aad daalacanaysaa hadallada Xaali, Sahra iyo Cali Maxamed Xaamud. Marmar ayaad qiiroonaysaa, marmar ayaad naxaysaa, marmar ayaad keligaa isla qoslaysaa, marar badanna su'aalo turabeel ah ayay maskaxdu soo tubaysaa. Runtii aad ayaan u jeclay buugta fiction-ka, waayo maskaxda ayay cariyaan casharo badan oo ballaaran si fudud ayaad uga dheefisaa. Runtii waxaan aad ula yaabay sida farshaxanka ah ee Maryan u noqotay Xaali, Sahrina u noqotay Hoodan. Waxaan akhriyay buug badan oo fiction ah, waxaan odhan karaa waa kii ugu fooladsanaa ilaa hadda. Markaan arko buugkan oo kale ah, waxaa niyaddayda ku soo dhacda yaa filin musalsal ah ka sameeya si Soomaalidan waxna qorin waxna akhriyani ay uga faa'iidaystaan. Waad mahadsantahay.